waa dhacdo dhif iyo naadir marka la joogo bulshada Soomaaliyeed dhexdeeda balse waxay furaysaa wadiiqa iyo wada toosan waxaadna isweydiinaysaa wax dhacay 51 sano ka hor in la ogaado waqtigan dhacdadan la yaab kale ayaa ka dhacday deegaanka Soomaalida kadib markii la ogaaday cidii dishay Imaan oo la dilay 50 sano ka hor isla markaana uu qartay ninkii dilay dhacdadan ayaa ku cusub Soomaalida dhexdeeda waxayna ku tilmaamaan midugub balse waxay furaysaa buug iyo taariikh cusub oo ay dhif iyo naadir tahay in la arko marka la joogo Soomaalida dhexdeeda tanina waxay tusaysaa toobiyasan labada reer ayaa ka heshiiyay qadarta ku timid waxaana la isla qaatay in la bixiyo magtii dil dhacay 50 sano ka hor ugu horeyntii waxa goobta ka hadlay faahfaahin ka bixiyay sidoo dilku u dhacay Aadan Cusmaan oo ninka gacantu ka dhacday aniga waxa la yiraahdaa Aadan Cusmaan bariya ana oo dhalinyaro yar yaa geelna laga xaday afara xagaagii jilaalkii hore kulka xadeen in xagaagii ku jiray ana labanin waan soo go'aan soo weyn anagu soo weyn baanu kor daaqay caruur la joogto inaan ka xasanaan deena isku dayna caruurtii dhawaaqday yaa farsanana laga soo kacay waxa Ilaahay qadaray inuu ka socday meesha xabad baan kormeeyay waxaan ka beenay ka joogsado ninkan dhintay waxa uu soo horreeyay mana joogsanay dhagax weyn buu kalgooreyay waa ku kala hadana halka ugu dhuftay musigtay iyo uga dhuftay hashi waan iskala tagnay waan dhaafnay xabadii damaanay dhulku bal ugu dhufo in kaaga joogso xabadii dhulku ku dhacday umba kor ugu kacay madaxa kaga dhacday wax dambe oo daba socda iyo wax noo yimaado ma naar anagayna waan iskaamus dhalinyaro rabban waay dhowr iyo konton ma ka dambeys anigu 250 iyo 50 midko yaa ka dambeys maanta umba fursad haysataa dhiigaanta badan qarsoona sheeg ba umba niyadeeda gashay waxaan dareemayaa in aniga iyo reerkii uu ka dhintayba inay wanaag noo tahay geesta kale waxaa dhankiisa ka hadlay Sheekh Maxamed Imaan oo dhalay marxuumka la dilay aniga magacayga waxa weeye Maxamed Imaan Aadan waxaan magac ku caan aleeyahay ibn Laboon aniga magacaygu sida weeye dhacdadan waqtigii ay dhacday anigu 2 sano ayaan jiray isaga sheekha maalinkii dhaweydeen isu nimid iswarsanay taariikh ahaan 71 inay ahayd ayaan isla taqriirinay waqtiga anigu 2 sano ayaan jiray wax ubad ah oo uu aabba ka tagay waqtiga aniga iyo gabadh iga weynayd baa jirtay gabadh iga yarina calooshay ku jirtay iyo hooyo intaasaanu ahayn alxamdulilaahi rabbil caalamiin dhacdadaasi sida uu isagu hadda uga waramay inay u dhacday ayaanu anaguna haynay laakiin iyagiina kolkay dhacdadu dhacday wax raadkooda hoo damba lama arag annagana wax shanqadhoon maqalay mayna jirin iyadoo sidaa ku kala aamusan tahay oo muddada intaa la eg laga soo wareegay ayaa waqtigan dhaweyd ee hadda hawshu ay soo baxayso ayaa sheekh iyaga oo uu sheekhan warkii ay isla qaateen baa warka soo gudbay Sheekh Uways la yiraahdo jazaahullahu khayran ninkii uu u soo sheegay oo reerka ahaaba aniga ila soo hadlay isagu markaa uu aniga ila soo hadlayo uguma uuna tala gashanayn aniga aabbahay nin dhintay oo reerkaas ah adi wax aqoon ma u leedahay inta kaliya uu ii soo weydiinaya adaa dadka laga yaabo in adigu dhaanta aqoontiisa bal tilmaan baan idhi taariikhda lagu sheegay iyo dhacdadu siday ahayd iyo wixii ay qoladu ku soo warameen wixii buu waramay markuu waramay baan waxaan idhi warka aad sheegaysay wuxuuba ku qiyaasan yahay sheekhi aniga waalidkayga ahaa Allah u naxariisto deedna sidaas raadku uu isugu yimid markii dambana aan isugu nimid oo ku kulanay oo dhacdadii isla xaqiijinay arintu sidaas aniguna waqtiga da'daasaan jiray dadkii warasada ahaa ee uu ka tagayna intaasay ahaayeen maantana alxamdulilaahi rabbil caalamiin
isagana waxaan leenahay hadduu ilaahay towbadii waafajiyey oo wakhtiga ilaahay xusuusiyey intayna naftu ka bixin inuu xaqii ku qarsoonaa soo muujiyo isagana ilaahay khayr ha siiyo towbadana allaha ka aqbalo ayaan leenahay ummadda kale ee muslimiinta ana dhammaantood waxaan leenahay xuquuqda kala maqan ee ku kala maqan shakhsi waliba isagiiyo khaaliqiisa rabbigii abuuray baa is-og isaguna intuu xisaabtamo intaan maalinta xisaabta la gaadhinaya ilaahay hortiisa lagu xisaabin doono inuu ruux waliba dhacdadan ku waana qaato oo annaguna aan noqonno kuwii qudwo wanaagsan ummadda u noqda ee dadku ay khayrka kaga daydaan inaanu noqonno sidaasaan rajaynaynaa. ugu dambeyntii tolkii labada dhinac ayaa ka warbixiyay arrintan ugubka ku ah Soomaalida dhexdeeda. dhacdadan intii iidda ka sokaysay iiddii inoogu dambaysay maalmihii iiddii baanu dhacdadan ay soo shacbaxday oo maqalay haddaanu maqalayna waanu soo dhaweynay si aad iyo aad ugu faraxsan baanu u soo dhaweynay waxaananu ku talagelaynaa sida iyo halkaa imika joogto meel ka sii wanaagsan inaan gaadhsiino sidaasaanu aad iyo aad ugu talagelaynaa waxaanu ku heshiinay diyadii iimaan aadan uu lahaa oo ah 100 neef oo geela inaan iska bixino maanta oo ay taariikhdu tahay 15 bisha 12 1443 taariikhda hijriga taariikhda milaadiguna ay tahay 14 bishii 7 2022 taariikhda waddankeena Itoobiyana ay tahay 7 bishii 11 2014 waxaa isugu nimid arrin aad iyo aad la yaab leh oo runtii mucjiso nagu noqotay oo ah iimaan aadan oo runtii caalimka weyn ee Soomaaliyeed ama ragga culimada waaweyn ee Soomaaliyeed kamida aabihii ah Sheekh Maxamed Iimaan oo inta badan laqabkiisu ibn Labuun uu yahay oo horay aanu maqalay in la dilay meel loo raacana la waayay in uun maanta isugu nimaadno isagoo la garanaya cidiisa falkaa geysatay iyadoon cidina ku khasbin ayaga xagoodana ay ka timaado runtii waa arrin aad iyo aad loola yaabo waa arrin la oran karo waa fajin ilaahay weeyaan insha Allah ta'ala hal kalimaan raacsano dadka Soomaalida meel kasto ay joogaan jaraa'im fara badan dunuub fara badan baa dhacday usxabaal fara badan baa dhacay dhulmi fara badan baa dhacay taadi iyo xadgudub fara badan baa dhacay laakiin yawma ma maanta qofka noole fursad buu hayaa sida hadda adeer magaciisa muxuu ahaa sida aadan cismaan oo kale cidii waxa isku ogi inay soo noqoto ay toobad keento cidii uu wax kaga maqnaana ay raadsato warafadii tarikadii ay raadsato ay cafiska dalabto Muudin Xaraga RTN Jigjiga